barnaamij uu soo jeediyey Ismaaciil Aadan Miicaad oo ku saabsan nolosha qoyska muslimka gaar ahaan nolosha qoyska Soomaaliyeed ayaa kusoo gabagaboobay bisha 26 magaalada Boston halkan waxaan markaa nagu soo gudbinayaa wixii ka soo baxay natiijadii traininka iyo sida ay u arkaan dadkii ka qayb galay waxay iga tahay warbixin waxa ka taagan amase barnaamijyada laga wado Boston oo gaar ahaan wado ninka la yidhaaho muxuu ahaa macalinka weyn khabiirka Ismaaciil Aadan Miicaad oo nooga yimi dalka Ingiriiska si wanaagsan ayuu soo dhaweeyey ayuu isku marayaa states fara badan oo United Stateska ka mid marka waa kan barnaamijkii ila daawada inay ka faa'iidaystaan 3 maalmood marka dad badan oo maaragtay aad iyo aad u riyaaqay oo rabay ayaa mar alla markii ay maqleen in uu joogo ayay qof walba wuxuu yiri inaan ogaan lahaa ayaa ii fiicnaan lahayd mu'tamarkiina laakiin waxaan dhahnay maaragtay calaacal ma fiicne marba haddii uu joogo ka faa'iidaysta 3 maalin oo kale ayaa idinku darnay oo maaragtay barnaamijkaas uu bixinayo insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay oo kale inaan mar kalena aynu soo celino si ummadda maaragtay uga faa'iidaystaan dad badan oo aragnayna waxay inoo sheegeen inay yiraahdeen wax aan 6 sano aan maaragtay ka shaqaynaynay ayuu wuxuu inooga dhigay si sahal ah in aynu maaragtay u sameyn karno caruurteena waanu naqaanaa maaragtay meeshani ma aha Soomaaliya oo kale ma aha wadan nabi ah taa marka ay dhacdo waxa weeyaan qofku waa inuu helaa way kale oo ilmihii lagu dhaqma marka taa ayaa waxay keentay barnaamijyadan oo kale inay noqdaan kuwa aad iyo aad looga faa'iideysto oo dadkana wax u tara waalidkii oo maaragtay ayagii laba jiha kala leh iyo caruurtii oo jiha kala leh ilmihii oo lagu qasbay inuu leeyahay Soomaali baa tahay ilmuhu jir ahaan waa Soomaali laakiin ruux ahaan wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto ilaa waxay ku kala duwanaan karaan waxa weeyaan aabaha iyo hooyada sida ay caruurta ay ka dhigaan sida nabigeena kaleey salaatu wasalaam xadiisku ku yiri kullu mawludun yulad ala fitra qof walba oo la dhalo waxa lagu dhalaa diinta islaamka lagu dhalaa marka aabihiis iyo hooyadiis unba marba dhinaca rabaan ka dhigi karaan marka ilmaheeni waxa weeyaan iminka meelaha ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aad u cusub oo loo baahan yahay ilmaha in loo fiiriyo sidee ilmihii loola dhaqmaa maadaama aysan joogin wadankii Soomaaliya ay joogaan wadamadii ajnabiga banaanka ay ku dhasheen ilmihii waxa weeyaan lagu ma qasbi karo lama oran karo oo kaliya Soomaali baa tahay muslim baa tahay kaliya lagu ma qasbi karo waxay u baahan yihiin ilmihii in la tusiyo weygii iyo dariiqadii ay ku noqon lahaayeen ay ku qasban lahaayeen inay leeyihiin diin islaami aad baad mahadsantahay Cabdullaahi waad mahadsantahay ma laga yaabaa inuu nagu soo noqdo oo halkan barnaamijyo kale ka furo waxaynu jecelnahay hadda wuxuu aadi doonaa state kale oo nagu dhegan oo la yiraahdo Maine ayuu ku maqnaan doonaa maalinka Jimcaha baan ku maqnaan doonaa dabadeeto wuxuu noo soo noqon doonaa wiiga kale ee ku xigay noo soo noqon doonaa sanadka 2014 maalinta bisha 4 ay tahay soo noqon doonaa marka waxaan jecelnahay in dadkii maaragtay classroom ka buuxsamay inay dib dambe maaragtay u qaadan karaan koorsadaasi maalinka Sabtiga Axadda iyo Axadda Isniinta bisha 4 iyo 5 ay tahay ayaan koorsadaasi maaragtay u fidin doonaa haddii taa ay dhamaateen insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay samarka intaan la gaarin ka horna in aynu u diyaarino mu'tamar kale oo aad iyo aad u weyn oo lagu hadlayo oo kaliya arrimaha xalka qoyska iyo caruurta iyo familka ka dhaxeeya aad baad mahadsantahay Okay, كمان برنامج ما شاء الله excellent aad baan ugu riyaaqnay waana ka faa'iideysanay maxaad ka baratay waxaan ka baranay wax aad u wanaagsan oo inta aan ku soo koobi karin oo adaabta caruurta adaabta iyo sida loo dhaqmi lahayd sida loo dhaqmi lahayd amaad cunugaaga aad u soo dhawaysan lahayd
adoo qaabili lahayd wixii asagu markaa wacdiga ah ay wato ee ayna ahayn inaan xoog adag ku noqonin iyo maaragtay anaa warkayga maqal maaragtay haddii kale my way or no way oh no way or or the highway my way or highway okay sida maaragtay waalid badan baa waxay jiraan inay xoog iyo dil iyo wax ku maquuliyaan iyo qasa badan taana ma soconayso marka hadduu inuu teenager noqdo ama uu qaangaarba soo gaaro ama qof walbaba adigaba hadday ahaataba ama aragtay ka soo qaad adigaba markii uu qasab wax lagugu diro ma jeclaysanaysid adigoo xanaaqsan haddaa fulisidna baa fulinaysaa marka maasha allah tabaaraka waxyaalo badan oo naga maqnaa baa hadda noo bayaan sameey oo maaragtay si qurux badan aan u qaadanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa walaalkay Ismaaciil in ajar alla ka siiyo iyo xasanaad aan dhammaanin annanaan alla naga dhigo kuwii qaato ku dhaqma maasha allah tabaaraka shukran Christian barnaamijkan parenting and parent coaching program seebadu aragtaa والله horta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxaa la yiraahdaa Xuseen Muuse magaalada Boos waxaan deganahay almost 16 sano barnaamijkan qoyska qaabilsan wallahi aad iyo aad ugu farxay sababtoo ah waxyaalo badan oo naga maqnaan ka faa'iidnay ma sha Allah familigan keenay oo dhan ee asxaabtooda maxaad ka baratay waxyaalo badan oo aan ka faa'iiday jirto aanan garanayn sida loo dhaqmo carruurta xanaanada ilmaha inaan lagu qayrin yaa iyo waxyaalo fara badan walaa aan la soo koobi karin marka ma sha Allah aan leenahay macalinka macallin Ismaaciil uu ku maasan yahay barnaamijkan quruxda badan oo familiga waana maasantiin barnaamijkan ma ka faa'iidaysay aad iyo aad u faa'iiday ana kana kale ma soo baxay barnaamij aad iyo aad u fiican wax ma yaryar iyo ilmo waaweyn iyo qoyskii iyo wax walba adigu waxaad tidhi carruurtan ayayda u ahay baan doonayaa inaan uga faa'iideeyo iyo okay that's good all right aad baad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay Ismaaciil nagu dara annagana Good program. I really enjoyed it. Was it great? Learning tools. parenting That would help the future. adiga professorka ahaa ayaa baranaya parenting It shows that I need more to learn. sidaad u aragtaa barnaamijka aad buu fiican yahay boqolkiiba boqol aad baan ugu istirahay maxaad ka faa'iidaysay aad iyo aad wax badan oo islaha waa saxan yihiin oo qaldan baa ay ka mid yihiin habkaan carruurta loo dhaqmo marka Mr. Micaad aad buu uga faa'iidaysatay absolute thank you very much you're welcome sidaad u aragtaa barnaamijka waa fiican yahay in adeer waaba ka helay horumar baaba ka gaaray maxaad ka baratay waxaan ka bartay inaa miduubaysaa in adeer ها برنامج كان parenting كسي كلها والله معنا ورفة برنامج كان برنامج آد وناكسن انت نولا ميدان أركي ما هين ملينا إننا برنامج سيدنا إنا أركي أو نين صوماليا ديغا هي هدنا يعني هدنا ولي انت نولا بقول قف الصوماليا كراس ما نفرسان إنا وحبر النعمض marka wallahi waxay ahayd ajaa'ib oo maartay wax igu horeeyay wax ajaa'ib oo markii igu horeysay aan arkay maxaad ka faa'iidaysay wallahi wax badan aniga xaaskay waan isgarab fadhinay waxaan ka faa'iidaystay sidii mataqaan reerka loo wada dhaqdo sidii mataqaan carruurta loo karsado waxyaalo badan waxyaalo kuma soo maartay kuma tirin kara caaw